ciidamada Maraykanka ee ku sugan gudaha wadanka Ciraaq ayaa shaaciyay inay isaga huleelayaan wadanka Ciraaq kadib markii baarlamaanka Ciraaq ay cadeeyeen qaraar dhigayay in Maraykanku ay isaga baxaan wadankooda. fariin rasmi oo la gaarsiiyay howlgalka militariga Ciraaq kulana socodsiiyeen dhaqdhaqaaqa ciidan ay ka wadaan waa Maraykanka hawada magaalada Baghdad caasimadda wadanka Ciraaq. dhaqdhaqaaqaas oo kamid ah badqabka ciidamada Maraykanka ka bixitaanka wadanka Ciraaq. fariintan ayaa sheegaysa in ciidamada Maraykanku ay isaga baxayaan wadanka Ciraaq oo uu ku saxiixan yahay taliyaha howlgelinta ciidamada Maraykanka ee wadanka Ciraaq William Seeley ayaa lagu cadeeyay in ciidamada isbahaysiga ee hogaaminaya Maraykanku ay isaga baxayaan wadanka Ciraaq toddobaadka soo socda. waxaana ay ku soobeeyeen ka bixitaanka Ciraaq inay ixtiraamayaan madaxbannaanida wadanka Ciraaq iyo go'aanka baarlamaanka Ciraaq iyo xukuumadda ay wada gaareen ee lagu dalbanayo in ciidamada sheegay ay ka baxaan guud ahaan wadanka Ciraaq. warkan ka soo yeeray taliska howlgelinta ciidamada Maraykanka ee Ciraaq ku sugan waxaa farxad gelisay dooshan ay ka qosleysay dowladda wadanka Iran oo ka soo horjeeday in ciidamada Maraykanku ay galaangal siyaasadeed mid militari ay ku yeeshaan gobolka Bariga Dhexe. waxa kale ay fariintani farxad gelisay ururada hubaysan Shiicada ay taageerto Iran. dhanka kalena gabadho hadashay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka pentagonka loo yaqaano waxa ay sheegtay in aanu jirin isbedel ku yimid siyaasadda ciidamada Maraykanka ee ku sugnaa dalka Ciraaq, isla markaana ay sii wadi doonaan iskaashiga ay leeyihiin militariga Ciraaq ay kula dagaalamayaan waxay ugu yeedheen argagixisada. xogayaha difaaca dalka Maraykanka Mark Esper oo ay suxufiyiintu weydiiyeen xaqiiqda iyo waxa ka jira fariinta ka bixitaanka Ciraaq, waxa uu sheegay in aanay jirin ka soo bixitaanka ciidamadooda wadanka Ciraaq. taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka oo isna ka hadlay fariintaas sheegaysa ka bixitaanka Maraykanka Ciraaq waxa uu sheegay in aanu jirin go'aan la qaatay kaasoo dhigayay ka soo bixitaanka gudaha wadanka Ciraaq. haddaba macluumaad laga heliyay gudaha wadanka Ciraaq ayaa cadeynaya ciidamada Maraykanku ay baneeyeen saldhigyo badan oo Ciraaq ugu yaalay iskuna soo urursadeen dhowr xarumood oo kaliya. waxaana dadka la faguro siyaasadda Ciraaq ay aaminsan yihiin in kulankii shalay dhex maray ra'iisul wasaaraha Ciraaq iyo safiirka Maraykanka u jooga Ciraaq lagu go'aamiyay in ciidamada Maraykanku ku baxaan dariiqyo qarsoodiya oo aan la shaacin. xiriirka u dhaxeeya Maraykanka iyo Iran ayaa muddo sanado sabeynay waxaana mushkiladu ka dhex uratay labada wadan waa Maraykanka iyo Iran 1953 markii ra'iisul wasaarihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee wadanka Iran Mohammad Musaddaq lagu riday afkambi ay soo maleegeen sirdoonka Maraykanka kan dalka Britain. 26 sano kadib 1979 madaxweyne Shah Iran oo Maraykanku taageerayay ayaa xafiiska kaga tagay dibadbaxyo ballaaran waxaana bedelay hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iran Ayatollah Khomeini. weerarkii safaaradda Maraykanka ee Tehran iyo afgambigii shaqaalaha Maraykanka ee 1979 iyo 1981 ayaa isaguna dhaliyay xiriirkii oo go'ay iyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Iran iyo Maraykanku hal mar istaagay iyo in Maraykanku cunaqabatiin ku soo rogo gudaha wadanka Iran. waxaana xaaladii sii xumaatay 1988 markii diyaarad rakaab oo Iran ay leedahay uu soo riday markab dagaal oo Maraykanku leeyahay. sanadkii 2002 Iran cadhoweyn ayaa ka dhacday markaas oo madaxweynihii waqtigaasi George W. Bush uu ku cambaarayay in dalkaasi ka mid yahay tiirarka shaydaanka kulana jiro Ciraaq iyo Kuuriyada Waqooyi. sanadkii 2003 Maraykanku Iran waxa uu ku eedeeyay inay si qarsoodiya u samaysanayso hubka nuclear-ka sida daran wax u baabi'iya. 2013 muddo sanadooda kadib hogaamiyaasha Maraykanka iyo Iran waxay ku wada hadleen khadka taleefanka. sanadku markuu ahaa 2015 Maraykanka iyo Iran waxay gaareen heshiis dhigayay inay Iran joojiso dhammaan macdanta uraniumka iyo tayeynta ay ku hayso. sanadku markuu ahaa 2015 Maraykanka iyo Iran waxay isla gaareen heshiis kaasoo loo yaqaanay nuclear deal dhigayayna in Maraykanku uu ka qaado cunaqabataynta uu ku soo rogay wadanka Iran tabadelkeedana Iran ay joojiso tayeynta macdanta uraniumka. hase ahaatee 3 sanadood kadib 2018 markii Maraykanku uu ka baxay heshiiskii uu la galay wadanka Iran ayay arrintu markale cakirantay.